igiya galkayo igiya angame igiya galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Igiya galkayo igiya angame igiya galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Igiya galkayo igiya angame igiya galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Igiya galkayo igiya angame igiya galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Igiya galkayo igiya angame igiya galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Golagu nusto golagu hanta galkayo igiya Igiya waaye waqtigan macnaaska waa xilli doora bismillaahir rahmaanir rahiim waxa halkan ku soo dhaweynaynaa maanta mas'uuliin xageena qiimo badan kale ee ugu horeeyo saaxiibkeen Biibshe iyo Maxamed Jaamac iyo Shariif Shaaciyo asoo laftigiisu ayaanta naga maqnaa ya dhalinyarada kale waxaan leenahay ku soo dhawaada galkacyo reer galkacyo mar walba waa dhalinyaro u diyaarsan soo dhaweynta dhalinyarada kale ama Soomaaliyeed ee nooga yimaada deegaanada fogfog ama magaalooyinka fogfog sidaas la mid ayaan maanta idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada galkacyo waa hoygii dhalinyarada hoygii nabadda waxaan rajaynaynaa maalmaha nala joogtaan waqti farxad leh inaan noo maaragtay nagula joogi doontaan idinkoo maaragtay u hamuun qabana naga tagi doontaan waxaan soo dhaweynaynaa saaxiibkeen legend Biibshe MJ iyo muftiga fanaaniinta mataqaanaa la socday sidoo kale waxaa jira team dhalinyaro ah oo iyagana lug noogu yimido Somali Academy ustaadka uu hogaaminayay Sakriye oo waxa weeye iyagana garow noogu yimid runtii waa team ku soo kordhiyay dhalinyarada iyo fanka barnaamij mataqaanaa heedii dhaqan oo mataqaanaa aad wanaagsan dhamaantii waxaan leenahay soo dhawaada galkacyo waa xarun dhalinyaro fanaaniinta imaanshahooda iyo barnaamijyada showyaasha waa wax nagu cusub waxaan rabnaa inaan noo daartaan haddii aanu experience aan ku ahayn laakiin waxa sharaf iyo qiyam noo ah inaan haysano dhalinyaro firfircoon oo soo dhaweynta iyo mataqaanaa aad ugu fiican iyo gobonimada aad ugu fiican galkacyo anaga waxaan dhahnaa waa xarunta dhalinyarada dadka halka jooga waxay isugu jiraan dhalinyarada Galmudug iyo dhalinyarada Puntland magaalada xuduud ma leh shaakan joognaa waxaan soo dhaweynaynaa waa fanaaniin dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin ah rabta inay magaalada nagula baashaalaan waqti fiican nagula qaataan maalmaha ciida nagula dabaaldegaan oo runtii safar dheer noo soo galay waa dareemka Nairobi waa Kenya marka waxaan leenahay si qalbiyan ah oo wanaagsan oo sharaf iyo karaamo ku jida walaalahan soo dhawaadaan leenahay waxaan leenahay mininkiina waa dhaan reexamarku laakiin markay dhaan reexamarku mininkiina waa wax u heliyaan anaga wax badan noo heliya marka waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah waa wada ciyaari doonaa oo wada waxaan soo dhaweynaa fanaankeena Maxamed Biibshe iyo waqtiga uu hogaaminayo waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waa cadnaayada wiil mudug ama ku magac dheer cadnaan decoration waxaan halkan ku soo dhaweynaa walaalahayga qaaliga aan wax badan aan u taagnaa kana mid ahay guddiga xafladda qabanqaabadeeda aan ka mid ahay koow ka ahay marka walaalkay Maxamed iyo walaalkay Biibshe waxaan leeyahay ku soo dhawaada galkacyo ku soo dhawaada dhulkiina hooyo waxaan leeyahay farxad baan ku wada eedina insha Allah ilaahay idinkiis habeenka eedana waxaan leeyahay wacdaro haweenana tustaan aad baan ugu faraxsan dad ma santihiin asxaabta qaaliga
sharafta iyo cisada iyo karaamada iyo dadnimada leh sida aad noo soo dhaweyseen waa idinkaga mahadcelinaya aniga iyo walaalkay maxamed biibshe hadal badan haan ma buuxsho waxa aan u nimid waa dareemi kartaan inaan waqti la qaadano inaan la faraxno inaan la baashaalno inaan waqtiyada ciidda aan la qaadano insha Allah taala waqti fiicanna waynu wada qaadan doonaa waa wada baashaali doonaa habeenka ciidda waxaan leeyahay kaliya laab anu meeshaan taariikh gooniyeyn ugu leedahay waliga horta hal mar aan nimid halkii marna waa ku guursaday marka taariikh gooniyeyn ugu leedahay waxaan u maleeynaa saddexdii habeenimo inaan soo galay lixdii maqribnimada aan ka baxay intaas inta u dhaxaydana aan maaragtay hawlo aad maaragtay u qurux badan aan ku qabtay aniga iyo asxaab badan oo uu ka mid yahay hogaaminayay walaalkay Sharif Shaaciye marka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina iyo qiimihiina iyo qadarintiina waa idin ka qabnaa horeen qof walba waxa weeyaan waxaan ku salaamayaa maqaamkiisa iyo magac halkan uu ku joogo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo habluhu inta badan markay rag loo fiiro wakaadkeesi xogaa muujiyay adeeg inta qorraxda taagnayd iyo waliba iyadoo Ramadaan lagu jiro waxaan ku faraxsanahay inaan magaalada Gaalkacyo joogo magaaladii calanka marka laga hindisay aqoonta dhanka gobonimada halkay ka bilaabatay waana sababtan u doortay inaan magaalada Gaalkacyo midna waxay qayb ka tahay inay ku nool yihiin bulsho dhalinyaro dabcan isku xiran waxa la yiraahdaa fulay xantiisa ma mooga Gaalkacyona xantooda ma moogo dad isku xiran yihiin bulsho isku timid oo aanan kala soc lahayn nabad ay heleen in la baraarujiyana u baahan iyo wada shaqaynta dhalinyarta waxaana sharaf weyn yahay inaan halkan ka bilaabo socdaalkayga ugu horeeyay aan weligay qabto show ah iyadoo aan ka bilaabi karin meelo badan laakiin aan ka doorbiday magaalada Gaalkacyo oo aan rabo inaan ku shaki bixiyo marka dhalinyaro badan inay halkan u soo hanqal taagan yimaadaan maadaama la yiraahdo Gaalkacyo show saas laga qaban karo waa laga qaban karaa horna waa looga qabtay kana waxaan jeclahay inuu bilow u yahay showyo kale imaan doono maxamed jaamac oo isagu qudhiisan u mahadcelinayo safarro kale shaqooyin ku jira ka soo waday Sharif Shaaciye oo isagu qudhiisa hawsha wax badan ka waday oo isaguna ila soo safray dhanka kale dhalinyarta anoo kala qaadin labada dhinacba oo aan leeyahay si guud iyo midnimadoodaba waan idin mahadcelinayaa kaamiramanada fanaaniinta waana dhawaha Gaalkacyo waan joogaa habeenka ciidda iyo waxa inoo balana dabcan 5 star ilaahay